loo gudbina aydan idinku ka daalin buu eraygaas ku habboona maanta go-aankii guurtigu wuu dhacay shuruucda qarankaanu ka mid waxaan reediyowyada iyo BBC iyo ka Somaliland iyo mid walba ka maqla mar walba saxiix madaxweynaha u haray waa saxiix madaxweyne uma hadhin ma saxiixo go-aan golo guurti oo arrintaa saameeya mashruuc sharci oo saddexda goloba soo maray buu saxiixa kan waxa weeye go-aan guurtiya oo dastuurku siinayo arrintaas waxay ahayd intii aan guurtigu go-aan ka gaadhin inay saddexdiina waynu saran waa iskhilaafteen go-aankiisa guurtigu markaa wuxuu ku salaysan waanu sababayn waanaanu sababayn gobollada aan ilaa mankii doorasho la gelayay aan doorashada laga gelin ee bariga waa sababayn ma ka hadhnaa waqooyiga ka wax sharci u yaalla maanta madaxweynaha sharciga u yaalla dib u soo noqoshadiisa laakiin golaha wakiilada sharci u yaalla ma jiro gobolladaana weli lagama howlgelin oo lama odhan waryaadhaheen ee nagala qayb gala danteenna iyo doorashooyinka nagala qayb gala waa qabyi horta intaan xusuus lahayn labadaa qodob baa ugu waaweynaa waynu faafinay shuruucda qarankuu ka mid yahay maanta waxaan waa idiin sheegaynay uun in arrintaa iyaguna go-aankooda iska gaadheen innaguna jawaabtii aynu siinay ay tahay guurtida go-aankeedii baa sharciya halkaasay inoo joogtaa kolley birta laynaga dhigi maayo in laydinkala xadayaan oga in laynoo u soo noqonayaan oga golaha waxaan jeclay inaan xusuusiyo horta goluhu waa mid goluhu wuxuu aanaa kala leeyahay oo nin waliba u madax bannaan yahay ra'yigiisa iyo siduu doonayo in goluhu go-aanka ku gaadho inta dooda lagu jira aan go-aan la gaadhin mar haddii go-aan la qaato kii diiday iyo kii ka aamusay iyo kii oggolaaday intuba weynay daafacda saasaynu gole ku nahay waxaan maqlayaa xildhibaano hadda suuqa iyo warbaahinta ka sheegaya waa lagu degdegay wixii sharciyadu taa kuwaana laga yeeli doono waanu kuleenahay sharaab aamus aamus waayahay gacanta iga dhig waar gacanta dhig iga daayo fadhiista go-aankii waaru kaadi cabdiraxmaan waar fadhiiso go-aankii goluhu waa kaa go-aankii goluhu waa kaa wixii khilaafa ee ragla yimaada shuruuc baa u taalla iyo dhaqan baa golaha u yahay taasaynu ku dhaqaynaa maanta intaasay inoogu eg tahay waynu